ka mid noqon doona maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday nin la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Axada waxa ay xukun ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab isla markaana maxkamadiisu ay soo martay heerar kala duwan. Muuse Maxamed Axmed ayaa loo haystaa ka mid ahaanshaha al-shabaab iyo farsamaynta agabka qarxa sida bomba FM sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar ayaa waxa ay ka soo qabteen Muuse Maxamed magaalada Marka bilowgii November sanadii 2019 ee tagtay isaga oo ugu soo safray Janaale. waxa uu watay xilligaasi eedeysanaha la qabanayay caagag lagu soo qariyay bambada nooc loo yaqaan F1 oo markaa ku dhex jirtay caagag iyo waxyaabo agab ah oo isagu watay. intaasi kadib ayaa la soo wareejiyay eedeysanaha waxaana loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho waxayna ciidamada xoogga dalka ku wareejiyeen ciidamada booliska gaar ahaan qaybta dambiyada baarista booliska ee loo yaqaan CID-da. baaritaan dheeraad ah kadib ayay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida dabadyaaqadii November sanadkii tagay markaa waxaana mar kale la isku howlay baaritaanka kiiska eeda ka dhanka ah Muuse Maxamed Axmed. 15kii February ee bilowgii sanadkan ayuu codsaday xafiiska xeer ilaalinta in la mudeeyo kiiska ka dhanka ah eedeysana Muuse Maxamed Axmed waxaana ay maxkamaddu mudeysay dhageysiga eeda ka dhanka ah eedeysanaha oo loo haystay ka mid ahaanshaha al-shabaab. 14kii February ee sanadkan ayaana loo fariistay. ugu dambeynna maxkamadda ayaa go'aan ka soo saartay waxaana lagu xukumay Muuse Maxamed Axmed 10 sano oo xabsi ciidan ah sida ay sheegeen dhinacyada dacwada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku qaadan karo raacfaan xukunka muddo 30 cisho ah. Puntland waxaa la joojiyay dhaqdhaqaaqii ay sameynayeen kooxaha kalluumaysiga Puntland kadib kulan aan caadi ahayn oo ay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ku yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ka soo baxay go'aan ku saabsan cudurka coronavirus iyo shirka markaa dhawaan ka furmi doono magaaladaasi. kulanka oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa warbaahinta looga dhageystay qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland iyo guddiga qabanqaabada shirka 15aad bishan oo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. maanta waa taariikhdu tahay 7 bishii 3aad 2020 maalin Sabti ah waxaa qabsoomay shirkii golaha xukuumadda dowladda Puntland. arrimaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga. wasaaradda amnigu laga dhageystay amniga waddanku aad buu u fiican yahay. waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka. wasaaradda caafimaadka laga dhageystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhaahdo coronaviruska oo ay hawl badan ka qabatay. wasaaraddu ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal eerboorada waddanka dhammaantood. waxaana la geeyay qalabkii maxay ahayd lagaga hortagi lahaa arrimahaas. waxaa la diyaariyay guri ku yaala airportka General Maxamed Abshir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo. waxaa kaloo la diyaariyay meelo kale oo gaalkacyo Boosaaso Garowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan dadka lagu karantiimeeyay muddo kooban. waxaa kaloo laga hadlay wasaaradda waxbarashada laga dhageystay mashruuc la yiraahdo ifiye wiiga soo socda haddii la haydo madaxweynuhu dahfuri doono oo ku saabsan waxbarashada. waxaa kaloo iyana laga hadlay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo ku tegay kormeer shaqo degmada Galdogob iyo degmooyin kale oo 326 oo haweena meesha la yiraahdo care hay'adda care ay lacag ugu qaybisay tababar iyo farsamooyin loo qabtay. waxaa kaloo oo laga wada hadlay in go'aan xukuumaddu ku gaadhay berito laga bilaabo bishii 8 tahay bishii 3aad 2020 doonyaha kalluumaysiga inayan ku soo xirinin marsooyinka Puntland marka laga reebo Boosaaso
amarkaasna waa la bixiyey waxaa kale oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha 15keeda oo ahaa wada tashiga Puntland shacab iyo dawladba oo guddiga laga dhageystay qabanqaabada arintaasina si fiican bay u socotaa waxaa la diyaariyey meelihii martigelinta iyo guddiyo loo qaybiyey arintaasina si habsami ah bay u socotaa arrimahaas iyo arrimo kale oo badan ayaa diiradda lagu saaray shirkii maanta faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal xalay ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe waxa soo baxaya faahfaahinta dheeraad ah oo dagaal xalay ku dhaxmaray deegaanka u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ciidamada militariga dawladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab wararka ayaa waxa ay sheegayeen in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay xalay fiidkii weerar ku soo qaadeen fariisimo ay ciidamada dawladda ku lahaayeen deegaanka Raaxooy oo u dhaxeeya Jowhar iyo Balcad rasaas xoog leh ayaa la sheegayay in la isku weedaarsaday dagaalka hase yeeshee lama oga waxyeelada ka soo gaaray labada dhinac sarkaal u hadlay ciidamada dawladda ayaa sheegay in ay ka warqabeen weerarka ayna u diyaar garoobeen waxa ayna gaarsiiyeen dagaalamayaashii soo weeraray qasaaro sida uu isagu sheegay sidoo kale warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa lagu daabacay in weerarkan uu ahaa mid lagu qaaday kolonyo ciidamada AMISOM ah oo waxyeelo lagu geystay guud ahaan inta ayaan ku soo afmeeraya warkii koobnaa ee telefishinka Soomaaliya Cable aad kala socoteen anigoo Maxamed Cusmaan Dahya ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulan dambo amaan Allah waxaan bogaadinaynaa Bilan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada